masaajidka Cumar bin Khadaab oo ku yaala xaafadda suuqa xoolaha gaar ahaan Bulabarey oo qabyo ahaa sanadihii dambe isla markaana maalmihii dambe muslimiinta laga codsanayay in loo iibiyo boos bannaan oo ku dhagan ayaa waxaa soo gabagaboobay iibinta booskaas iyadoo muxsiniinta Soomaaliyeed ay qayb ka iibiyeen booskaasi balse iminka wajigii labaad ee masaajidka ayaa laga bilaabayaa halkaasi maadaama booskaas labaad uu u baahan yahay dhismo ballaaran culimada Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in muxsiniinta wax haysta ay ka qayb qaataan masjidkaasi waa kan Sheekh Abuukar Xasan Maalin oo u mahadcelinaya dadkii markii hore ka qayb qaatay isla markaana mar kale ugu baaqayo in dadaalkoodii ay si laabaan walaalayaal halkan aanu taaganahay waa magaalada Muqdisho suuqa xoolaha gaar ahaan xaafadda Bulabarey waana masjidka lagu magacaabo مسجد عمر بن الخطاب كيالا سوق حولها مقالة مقدشو قارهان حافظة بولبري مسجد كان ولا ليال وحان هردت كمسلمين تاع aan ugu baaqnay oo u jeedinay dadka ina daawanaya kuwa ina dhageysanaya dalka gudihiisa iyo dibadiisaba ku sugan in masjidku uu u baahan yahay in la ballaariyo laguna ballaariyo boos ka xiga dhinaca qorax soo baxa oo u baahan masjidka in loo iibiyo waxa Ilaahay mahadiisa subhanahu wa ta'ala dadkii muxsiniinta ahaa inay baaqeen ay ka soo jawaabeen dhulkiina masjidkii ay u iibiyeen waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga mahad celinaynaa Ilaahay suurta galiyay in masjidkii baahidiisii la daboolay oo ku saabsanayd xagga dhulka iibintiisii waxaan kale u mahad celinaynaa walaalaha dadka muxsiniinta iyo gabdhaha muxsinaadka ah ee dalka gudihiisa iyo dibadiisaba gurmad xoog la uga soo sameeyay masjidkan Umar ibn al-Khattab una iibiyay dhulkii masjidka lagu waasicin lahaa waxaan Ilaahay uga baryaynaa dadka muxsiniinta ah in Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhamaantood intii wax kula baxday masjidkan Umar ibn al-Khattab guri Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannatul firdaws inuu Ilaahay uu ka siiyo maxaa yeelay nabigeena sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi وبشاري قفل بمسجد وحكود درسته حديث كي بخاري مسلم أي ورينيين النبي صلى الله عليه وسلم وحكير من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة قفك إلهي درتي مسجد أدسة ومساجد كاتا كلية قرية إلهي جنة أقدسة سبحانه وتعالى مركب بشارة وين ويا إلهي سبحانه وتعالى أبالكنا الله وينيو ددكنا يداقنا يدينكنا إلهي هيدين بركايو صدقنا midii aad mahadisaan adduunyo aakhiraba Ilaahay hadin kaga dhigo mar labaad waxaan baaq marka u direynaa waxaan galeynaa marxaladii labaad ee ku xigtay maadaama booskii aad iibiseen Allah idin barakeeyo waxaan u galeynaa marka oo bilaabeynaa masaajidkan Umar ibn al-Khattab xaafadan Bulabarey ku yaala suuqa xoolaha inaan dhismihiisii aanu bilaabno oo booskii hore qabyada u ahaa iyo booskan aad iibiseen labada boosba inaan maaragtay isku dhisno masaajidka sida la rajaynayo waxaan rabnaa labada boosba inaanu dabaq aanu ka dhisno si uu u noqdo masaajidku masaajid ballaaran oo ilaa qiyaami saaca insha Allah ta'ala lagu cibaadeysan doono dalka iyo diinta ummadana u adeegi doona oo u khidmayn doona sidaas awgeed walaalayaal masaajidka aanu ka qayb qaadano dhismihiisa sida booskaba aad ugu iibiseen oo si fudud oo maaragtay u farxad wanaagsan aad uga qayb qaadateen مساجد كان عنو دسنو عبد الرحمن كمبالا كالسن TV مقدشو